السلام عليكم أصحابي waxaa mar kale aan isugu soo laabaneynaa xog cusub oo muhiim ah weliba isla markaana soo dhacday. Xataa waxaan diyaarinayay muuqaal kale laakiin markii aan arkay xogtaasi muuqaalkaasi baws ayaan iska dhahay. Teeda kale muuqaalkaas aan diyaarinayna insha Allah mar dhow soo fasax doonaa teeda kalena waadna ka heli doontaan insha Allah siiba dad badan ay ogahay. Xitaa haddii ay xogo qish idin siiyana wuxuu ku saabsan yahay taxanaha Colors Orhan. Marka meeshaas aanu gudubno xogta cusub ee hadda miiska noo saaran waa in Halid Usjur oo bilaaw doona taxano cusub cidii taqaan kaas cidii aan ka siinina waaba ka wuxuu sameeyay taxanooyin kala duwan sida Yabaani iyo midkii ugu dambeysay oo hadda uu waday oo ahaay mawjadaha badda madow mawjadaha indhaha badda madow qofal bas u yaqaano ninkaasna taxanooyin kala duwan oo sameeyay waa jiraan laakiin labadaas ugu muhiimsan ee hadda soo qatay haatadana wuxuu wadaa taxano cusub waxaana ku heli doonta aktarad kale oo miisaanka culus ah ayadana lagu magacaabo Miray Danir. Markii meeshaani waxaan ugu dirayaa hambalyo dadka labadan aktar kala taageera siiba Miray iyo Halid. Ugu dambeyn waxay soo imaan doonaan taxano waliba midkaas oo aad u xiiso badan. Labadoodana waxay ku kala jili doonaan laba door oo aanan islahayn. Yacni laba door oo iska soo horjeeda. Halid waxa uu matali doonaa door askari waliba aad u adag doorkiisuna aad buu u xooggan yahay. Halka gabadha Miray aydan ay matali doonto dhaqtarad cilmi nafsi. Sheekada marka waxay ku saabsan tahay xiriirka dhexmari doona labadan qof waliba labadooda doorna yacni shakhsiyadda ay kala batarayaanna ay iska soo horjeedaan. taxanahan sidii ma aragtay kuwa TV-da laga daawanayo kala ma aha doon ay waxa laga daawan doonaa platform digital-ka ah ee Todd halkaas ayaa laga daawan doonaa. Sidaas awgeedna ninkani sida aan uga baran oo taxano walba oo sameeynaayo oo laba saac soconaya ma noqon doonaan maxaa yeelay digital-ka ee internet-ka markii la soo galay sida Netflix iyo Todd kuwan oo kale taxanooyinkooda waa 40 daqiiqo ilaa 45 ilaa iyo meesha ugu badan oo hal saac ah. marka sida ayuu taxaniisa noqon doonaa waa hal saac yani 45 daqiiqo ilaa hal saac ayuu u dhaxayn doonaa. duubista taxanaha iyo sadka goor kala tagayna waxay noqon doontaa bisha May 2026. waa bisha May ay noqon doontaa duubista. kaliya waxaa naga xigta bisha Abriil oo kaliya bil kadib duubistiisa waa bilaaban doontaa. qoraayada qorta sheekada taxanahani waa Aylan Kambolat waxaana agaasimaya Huliya Kaser. shirkadda soo saareysana waxay tahay Karka 7 Pictures. asxaabay intaas ayay ku eg tahay xogtii aan ka soo aruuriyay taxanaani cusub mid baan idinka iloway taxanaha magaciisa maba aana idin sheegin karan ee qabsada waa kana magaciisa Alikara ayaa la taxanaha magaciisa. Teeda kale asxaabay ma maleynaysaan in Halid iyo Miray ay wacda ka dhigi doonaan taxanaha cusub ay isla sameey doonaan ee Alikara la magac baxay. anna waxaan ilaa sidaasi macsalamo wixii macluumaad aad doonaysaan comment-ga nagula wadaaga oo ka taqaanaan jilayaasha jilay taxanaha.